iyadoo guud ahaanba ay raxmadda iyo roobabka Rabbi uu shubay ay ka da'ayaan deegaanada gobolkani Gabiley ayaa mar kale roobab laxaad oo ka da'ay deegaanada gobolkani waxay mar kale sii gooyeen isla markaasina ay waxyeello u geysteen wadada isku xidha Kalabayd iyo Wajaale halkaasi oo habeennimadii xalay ahayd ay daadadkii halkaasi marayeen ay gebi ahaanba kala xidheen isku socodka gaadiidka Wajaale iyo Gabiley waxaana biyihii quwadda lahaa ee halkaasi maray ay gebi ahaanba qaadeen amuudi halkaasi dhawaan lagu rogay iyagoo biyihii quwadda lahaa halkaasi marayna ay dhammaanba dhulka la simeen isla markaasina ay intoodii badnayd qaadeen amuudi halkaasi dhawaan lagu shubay ee loogu talagalay in lagula tacaalo isla markaasina wax lagaga qabto xaaladda adag ee ku soo foolay wadadaasi haddaba dadweynaha magaalooyinka Kalabayd iyo Wajaale oo aanu mikrofoonka la dhex qaadnay ayaa cabasho ka muujiyay isla markaasina sheegay in ay khatar ku sugan yihiin iyagoo fariin u diray xukuumadda Soomaaliland ee uu garwadeenka ka yahay Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo iyo wasiirka wasaaradda hawlaha guud Cali Mareexaan maareeyaha wadooyinka waxaanay ugu baaqeen in ay sida ugu dhaqsaha badan leh wax uga qabtaan isla markaasina ay ka dhabeeyaan ballanqaadyadii ay dhawaan sameeyeen mas'uuliyiintaasi ee ku aadanaa in sida ugu dhaqsaha badan leh wax looga qaban doono xaaladaasi waxaana hadalladoodii ka mid ahaa dacdee inoo bilaabatay macawal ma nasqaan leh laakiin waxa weeye meeshan fikirka lama haysto iyo sayidka haysmale meeshan waa tugeerogi toga Wajaale qaadana ma waxa weeye kaabaduhu way ku yaryihiin injineerka dhisayna aqoon uma baxay saan ugu waxa weeyaan waxa loo haystay wax meel iska yar oo halka caynkaasi waxa weeye toga Wajaale iyo toga noosku waxay iska daraan tiiga geed ballaad marka yar laga yimaado wadada dadka inta la soo gaaro labada biyo way isleeyihiin waxaan wuxuu ka yimaada saddex meelood ayuu iskaga soo daraa Kalabayd biyo ka yimaada markaas yimaadaan ilka weyne tuufada biyo ka yimaada markaas yimaada adna doon kuwa ka soo dhacaa marka la isku yimaado waxa weeye tusaale hadda ka baxayo halista ugu weyn waxa weeye waa tuuga inta kaalada u taala kana ka khatarsan لأنه ماشوا دوام مجالي تجدي كومالا يطلع أو وجهه أو كرنيه حكومة ما كان واحد يقول باقينا إن ستة دقيقة هدي أمر كلهم لفهم واي لكن يمكن لا ينفهم عن كثير إن ستة دقيقة وحلا غلط وحلو يحكمون ضد عشور بقطع وحلو وقت واحد يحاول يهين ده وحلا غلط وخما وقت يجي وحاول له وحلا غلط يسوى عشور بعيد الحكومة ugu baaqi lahaa in halkan si dhaqso ah wax looga qabto haddii la mooyay inaanay togahayn toga Wajaale kale lama waxaan markaa xukuumadda la si degdeg ah waxa loo qabto shirkada wax dhisaa loogu yeero assalaamu calaykum bismillaahi rahmaani rahiim waxa weeye walaal anaga biyaha suuqa doonayna xukuumadda inay nooga samayso dooyin ay hoos faraska buundadaas oo kale laba buundo oo kale lagu soo bidiyeen doonaynay halkaan laga sameeyo ay istaan uga dhacaan hadii kale xukuumaddu dadka ay biyuhu qaadayaan iyo baabuurta dadka alxamdulillah rabbil caalamiin baan joognaa raxmadii ilaahay ka soo ilaahay uu nasiiyay raxmadu laakiin wax yeelay leedahay marka xukuumadda iyada iyo dadka iyada iyo dawladda waxaan ka codsanaynaa in la nooga sameeyo halka biyuhu laga qaadayaan buundooyin waayo wadada uu lama eegay xaleega shicibka iyo xaleega dadka saaxiibka ah waxa la eegaa sida waxyeelada uu keenayaan uu naqaadi gaaray xalay dadkaan ku bixinta xoolo naga qaabay hala nooga sameeyo buundooyin baan leeyahay nibcada ilaahay ay deelaga saarto baabuurtana buunda hadii laga sameeyo waayo wadada ma dhisnaanayso sidaas aan leeyahay oo ku codsanaynaa دول كوا خصنا على برتر يسكون إن ست دقيقة وحلا غلط وحلو يحكمون ضد عشور بقطع وحلو ضد كثير واحد يحاول يهين ده وحلا غلط وخما وادق يحاول يه وحلا غلط سوا عشور بعيد الله هاي وكل سوي خصنا بنا وحلا غلطنا وحمر يحكم أمر يحكم في ذلك ولا تقول شهر ما حاجة ذكر الله ما هذا في كل كذا سنة يلا بريش كنت بلاقي كل بريش كي بيجي بعض المرات دود العيد اللي عقدت عيد دود اللي عقدت تيون الباهي أيو خالدات إما كان بيجي أخو استوت منهم بريش كنت المران بريش يريد أو جد بيجي تمين مقدم هو أخو حتى أنا سبيران كأصاب وخبر
هنا أنك وحبي يدات خدوه روب دمدو ولد روب كو صعدان أولاد يقولين تجربية سوالان على مرحال ما نسيتوا يتولوا كيمتي إن وضعوا صاير عاش مركزي ما نسيتوا يتولوا دعوة سوق على يوم من جنس وكان يقول وضعوا القوم وضعوا نظف ربنا بطايعي بروبلم كمان كاني وضعوا خاو وضعوا هالمتر بدو حسري هالكيمة تبودي maanta kutay dhawaan ay ahayd markii wasiirka wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeenta Mr. Cali Mareexaan iyo maareeyaha wadooyinka Somaliland ay goobtaasi tageen isla markaasina ay ballan qaadeen inay sida ugu dhaqsaha badan leh wuxuu ka qabanayaan xaaladani ku soo foole wadadani isku xidha Wajaale iyo Kalabayd iyadoo ilaa iyo haddana aan loo xal helin bal aynu eegno waxa uu wasiirka wasaaradda hawlaha guud ka yiri waqtigaasi isagoo ballan qaaday inuu sida ugu dhaqsaha badan leh u dhameystiray doono maalmaha soo socda ولو أنا أرنتاسي نقولن مدهر جشاء إلا هاتن. يابله لامي جوا إنه بتقبع لكن قربه لامي هو هذا دفاع يادين عن وضعت في شبيه وحنا وصلوا بيها وضل مري لامي لبس بوضع بانو وعنا يوم جوا halkan waxa dhaam weyn baa ku yaala dhaamku biyo markuu haye uu kaydiyo haduu bitaado marbu biyo culus soo deynay marka mushakilka halkan area-dan ka jirto oo dhan ama tii dilaha ahaato ama tan kale ee Wajaale gudaha ama tan ahaato waxa weeyaan dhulkii dhaam weyn kilometerkiiba laba dhaam baad ku arkaysaa marka problemkaas waxa weeyaan dhaamkii aan qorshaysnayn oo wadooyinka qarkoodii saaran markay biyo ku buuxsanaan soo fatahay arinta kalena waxa weeyaan calvertski buundooyinkii biyaha ayaa ku yar xabad qura meesha ku jira waa kan maareeyo inoo sheegay kulley laba qorshaan doonayaan inaan qabano oo mid waxa weeyaan hadda in garbihii dadku qaaday la soo celiyo waa qoys garooyinkii ay xafiidii wixii diyaar awshaas way naga gabagabeysaa dhowr cisho soo socota hadda wixii damage iyo wixii xaalxaalan asaasiga loogu yahay waa laga shaqeynayaa hadda laga dhigo isku soo wada xooriyo hadan arrintan sida ugu dhaqsaha badan leh wax looga qaban waa mid gabi ahaanba baabin karta isku xidhka wadadani isku xidhaysa Kalabayd iyo Wajaale iyadoo Wajaalana ay tahay magaalo ganacsiyeed kaliya ee Somaliland isla markaasina ilaha dhaqaale ee Somaliland qayb ka ah halka ay magaalada Kalabayd tahay kaalinta labaad ee dakhliga Somaliland isla markaasina lagu cashuuro jaadka soo gala customkaasi Kalabayd kaasi oo kaalin mugle kaga jira dakhliga Somaliland waana mid u baahan in sida ugu dhaqsaha badan la wax looga qabto waa Maxamed Xasan Sheekh Maxamed Jubba